dowladaha ku midoobay dalada IGAD ayaa waxay maanta shir jarayd ku qabteen hotelka Lake Regency magaalada Nairobi. dalada IGAD oo ka kooban ilaa 7 dowladood ayaa waxay dalkani Kenya u soo direen indhayaasha doorashada taasoo ku aadan isniinta soo socoto ay taariikhdu ku beegan tahay 4 bisha 3. shir jaraydkan ay isugu yimaadeen wasiiro matalaya dowladahooda ayaa waxaa ka mid ah ra'iisul wasaare ku-xigeenka iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalka Soomaaliya Marwo Fawziya Yusuf Haji. dhammaan wasiirooyinkan ayaa waxay ugu baaqeen dadka Kenyaanka inay doorashadooda ku gutaan si wanaagsan oo cadaalad iyo nabad ku saleysan, iyagoo sidoo kalena dadka ugu baaqeen inaysan marnaba ku noqonin qalalaasii dalka ka dhacay doorashadii hore ee aan soo dhaafnay. xogeyaha guud ee ururka IGAD Mudane Maxbuub Macalim oo isaga ah nin Kenyaan ah ayaa waxa uu noogu waramay muhiimadda shir jaraydkan, isagoo sidoo kalena dadka Kenyaankiisa ahna ugu baaqay inay nabadda xoojiyaan. isagoo arintaasi ka hadlayeen wuxuu yiri ururka IGAD halka isku yimaadaan saaka ayaga oo wada akhbaar muhiim ah oo ku saabsan doorashada Kenya ka dhici doonto maalinta Isniinta, ayadaas oo ay tahay in ay midnimo ay muujiyaan oo ay khabar u gudbiyaan dadka Kenya ku nool ayagoo leh doorashada in lagu dagaalamo ama maartay qaaqul weyn loo keeno inaysan hayn oo qof walba oo codkiisa u dhiiban karo asaga oo maartay nin aan la dagaalamin waxba qaaqul leh aan ridin. marka waxay yeelan saaka waxay u kacaan waxay soo eegeen meesha tirada goob lagu sameyn karo Bomas Kenya ay tageen briefing ba loo sameeyay aad bay u farxaan wixii arrinta loo sheegay way ka soo tageen. waxay arkeen chairman-kii commission-ka arkeen asagana maartay warbixin buu ka siiyay aad bay u farxaan sidii maartay arrimaha lagu sharaxay. IGAD waxay aaminsan tahay doorashadan hadda Kenya ka dhici doonto inuu kii hore maartay qaladaas ka dhacay uu ka duunaan doono oo kan maartay doorasho fiican oo ammaan ku dhici doono ay u maleynayaan ay qabaan ayadoo ay u wacan tahay in IGAD dowladaha ka tirsan ay og yihiin in isbedel badan ka dhacay Kenya waxaa lagu dhawaaqay qaynan cusub qaynankaas oo maartay arrimo badan oo horaan dib keenay lagu xaliyay maadaama arrimaha la xaliyay oo marka sharcigan cusub Kenya hadda maamul lagu xaliyayna oo ahaa arrimihii dhibka hore keenayna uu marka si la ajleed maartay kan uu dhib la'aan ku dhici doono ay aaminsan yihiin. doorashada guud ee dalkani Kenya ayaa waxaa lagu wadaa inay dalka ka dhacdo Isniinta fooda inagu soo hayso, iyadoo dadka Kenyaanka ay u codeyn doonaan ilaa 6 murashax taasoo ka duwan doorashooyinkii hore ee loo codeyn jiray ilaa 3 ruux. Ciise Xaji Cabduul, Home Cable TV, Nairobi.